السلام عليكم صاحب يا ميل وبد عالم كجوجتان وانigoo ah qeyradiish waa kulankeennii falanqeynta asbuuclaha ahay waa qeybtiisii shanaad haddii ilaahay ka raali noqdo saaxiib yaal asbuuci hadda la soo dhaafay wuxuu ahay asbuuc aad u qurux badan runtii lacagihii aan falanqeynana halkii aan ugu talagalnay waa ay tageen ilaahay ama hadda iska leh waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen run ahaantii profit fiicanna aad ka qabsateen asbuuci hadda la soo dhaafay saaxiib yaal lacagihii aan falanqeynay haddii aan wax yar gadaal ugu laabano waxaa ka mid ahay euro iyo New Zealand saaxiib yaal lacagtan halkaas ayaan ka falanqeynay waxaan u falanqeynay inay halkaas tagi doonto alxamdulillah halkii aan ka rabnay waa ay tagtay wayna waafaqday waxaan rajaynayaa maaragtay 500 oo bib inaad ka faa'iidaysateen dhammaantiin lacagta xigta oo asbuuci hadda la soo dhaafay aan isla falanqeynay saaxiib yaal waxa ay ahayd New Zealand iyo USD saaxiib yaal lacagtan halkaas ayay taagneed waxaana u falanqeynay in ay halkaas imaan doonto trailenkan imaan doonto ayadana saaxiib yaal waa tan haddaan idin tuso waa taas trailenkan imaatay ayadana sida aan uga faa'iidaysteen ayaan rajaynaa saaxiib yaal lacagta xigta oo asbuucii hore aan isla fiirino waxay ahayd tan ay shabahday waxay ahayd audio iyo USD lacagtan saaxiib yaal ayadana waxaan falanqeynay ayadoo halkaas taagan ayaan falanqeynay waxaan u falanqeynay haddaan inta fiirsin dhisaankana soo qaadanay inay halkaas imaan doonto marka saaxiib yaal ayadana halkii aan ka rabnay way imaatay saddexdii lacag waan falanqeynay jihooyinkii aan u falanqeynay waa ay tageen ilaaha ma hadda iska leh saaxiib yaal waxaan rajaynayaa maaragtay inaad ka faa'iidaysateen farxad ay tahay lacagaha asbuuca soo socdo aan raba inaan isla fiirino waxaa ka mid ah euro iyo cat asbuucan soo socdo maxaan ka filaynaa saaxiib yaal haddaan isla fiirino wax yar waxaan joognaa Fuhawa lacagtan waxaan waa iska tiraynaa saaxiib yaal si aad wada aragtaan tara linkana noo soo qaad aniga suuqan haddaan nahay bahda Darwish Academic anaga suuqan wax indicator uma isticmaalno suuqan anaga waxaan u isticmaalnaa market structure ahaan ma adeegsano wax haba yaraatay indicator ah marka saaxiib yaal trailenkeena aan noo saaro okay saaxiib yaal sida u jeedaan lacagtan waxa iga muuqato fursad buy ah haddii maaragtay wax yar aan idinka tuso fursadda iga muuqato lacagtan sida u jeedaan marka hore waxay ku dhaqaaqdo waxa la yiraahdo double bottom waxa ay sameysay waxa la yiraahdo descending channel run ahaantii saaxiib yaal waa powerful market structure-ka haddaa fahantid run ahaantii indicator iyo waxa uu yahay adaa maaragtay laga waraysan doonaa marka saaxiib yaal lacagtan waa u jeedin waxa ay sameysay dhaqaaq ay sameysay lacagtan saaxiib yaal waxa ay hadda ku jirtaa waxa ay tahay waxa la yiraahdo nasasho ama correction hadba kii aad u taqaaniin marka saaxiib yaal hadda maxaan ka filaynaa marka dhaqaaqii mid la mid ah inay dhaqaaqdo saaxiib yaal saasaan ka filaynaa haddii ilaahay idmo okay lacagtan noo soo qaad ilaa halka aan rabno inay tagto okay structure-ka oo buuxo hadda isla fiirino lacagtan halkan noo soo qaad ilaa halkaas aan rajaynaa lacagtan okay tartiib lacagta dhanka kale noogu gudi si structure isugu keensaxo noo soo saar lacagtan ilaa halkan ka filayno oo jeedin Soomaa exactly tan laga saar marka saaxiib yaal okay lacagtan maxaa idin kaga muuqdo marka idinka hadda fursadda iga muuqata lacagtan saaxiib yaal waa garab madax garabkii kale ilaa lugti kale marka marka ana waxa iga muuqato fursad noocan ah head and shoulder marka saaxiib yaal waxaan rajaynayaa in idinkana hadda aragteen haddii sidaas aan ka filayno ay noqoto waxaan uga faa'iideysanaynaa saaxiib yaal sidaan uga faa'iideysan jirnay lacagihii hore macquul ma tahay in inta la keeno maxay sameynaa hadda inta imaato waxay sameynaa 1 2 3 oo ah triple bottom saasna waxay noogu aadi doontaa abtaran haddii ilaahay idmo marka mar walba anaga waxaana quseeyo dhaqaaqa
oo sameey doono suuqu marka saaxiibayaal yaan waxba ka hor dhicin yaa maarto waxba yaa la isla dejinin aan sugno ha noo imaado suuqu asaga ka bacdina aan ka faa'iideysano lacagta xigta saaxiibayaal waxay noqon doontaa arabnina isla fiirino okay lacagta hadda asbuuc la soo dhaafay aan ka faa'iideysana haddana fursad kale ugu jeeda fursadda kale ugu jeeda maxay tahay lacagtan sida u jeedin saaxiib waxaan ugu faa'iideysanay fursad sell ah hadda waxa iga muuqata fursad buy ah oo see ah lacagtan hadda qaabka meeshan ku imaato u jeedin saaxiibayaal wax qarsan ma ahan halkan waxa ay ka sameeyay wax la yiraahdo double bottom lacagtan maxaan ka filaynaa marka saaxiibayaal lacagtan wax kale ka filamayna saaxiibayaal waxaan ka filaynaa lacagtan saaxiibayaal dhaqaaqi hadda meeshan ku imaatay in impulse ahaan loo cusho lacagtan ka bacdina ay correction siiso saasna ay by the way ay ku aado saaxiibayaal uptrend oo aan qaabkaas uga faa'iideysano marka saaxiibayaal maraba video inaan ku dheeraado lacagtan qaabkaas ayaan ka sugeynaa New Zealand iyo USD marka saaxiibayaal qaabkaas aan uga faa'iideysano lacagtan macquul ma tahay naftirkeeda inay sell soo aado of course suuq anu ma maamulna haddii ay soo aado lacagtan oo hadda qaabka ay tahay loo sii push gareeyo lacagta ilaa intay gaari kartaa lacagta in inta halkan imaato waa macquul ilaa halkan imaato ilaa halkan in la keenana waa wax macquul ah marka laakiin aniga wajigan facekan aniga kuma degdegayo igamana muuqdo hadda ma ogi waxa suuqu ku furmi doono laakiin hadda facekan dambe aniga igama muuqdo waxa iga muuqdo facekaas ugu horeeyo marka saaxiibayaal waxaan idin kula tali lahay ugu dambeyn lacagta saaxiibayaal markaad lacagaha falanqeeyaysiin anaga haddaan nahay bahda reer darwish waxa aan sameynaa saaxiibayaal lacagaha anaga waxaan u falanqeynaa jihadaas aan lacagaha u falanqeynay iyo shuruudaha aan ka sugayno markay noo soo waafaqaan waan ka faa'iideysanaa saaxiibayaal suuqa kuma degdegno suuqa maaragtay kama hor dhacno suuqa waxaan sugnaa inuu asagu noo imaado saasoona suuqu ku wanaagsan yahay saasaana guul uga gaari karaa marka saaxiibayaal waxba haysta dejinina insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan lacagahan aan idin soo diray laakiin saaxiibayaal waxa uga faa'iideysan kartaan at least hadda qofkii fahmo qofkii arka falanqeyntan u soo diray fahmana hadalka aan ku hadlaa waxaan rajaynayaa inuu lacag aan soo diray oo maaragtay oo soo ku qasaarin saaxiibayaal please and please lacagaan soo diray inaad ku faa'iidaan maahane ma rab inaad maaragtay ku qasaartaan ma ahan waxaan aan idin soo diraayo inuu noqoto signal ahaan saaxiibayaal waxa u qaadatan waxaan cilmi ahaan saaxiibayaal aniga lacagtan ma maamulo jihada aan idin kugu soo diraa jiha ahayn way aadi kartaa balse waxyaabaha aan ka sugayno iyo maaragtay iyo waxyaabaha aan idin leeyahay maaragtay lacagta waa ka sugaynaa saaxiibayaal idinkuna ka suga insha Allah hadda intaad isku darsataan ma rajayn doono meeshaas inay ka imaan doonto wax khasaaraha waa ku faa'iido doontaan haddii ilaa idmo balse shuruudahaas aan ka sugaa saaxiibayaal idinkuna ka suga run ahaantii waxaa jira waxyaabo badan waxaa jira sirooyin badan lacagta naftirkeeda markaa gasho waxaa jira qaabo badan oo lacagta la iskaga ilaaliyo maaragtay in ay khasaare kaaga imaato lacagtu waa aad gashay structure-ka hadda iyo confirmationada way soo buuxisay saastee taa maaragtay waxaa sameyn kartaa maaragtay waxyaabo badan oo maaragtay suuqa iskaga daafici karto soo maaragtay khasaare ku keenay marka saaxiibayaal waxaan waa idin weegi doonaa ayadana hadii ilaahay idmo saaxiibayaal waxaan rajaynaa asbuuc hadda la soo dhaafay inaad ka faa'iideysateen waxaan rajaynaa asbuuca soo socda inaad sidoo kale uga faa'iideysan doontaan hadii ilaahay idmo intaan ku kulmayno videoga xiga saaxiibayaal waxaa idinkaga tegayaa cimri dheer cibaado suuban iyo caafimaad taam